Kaahina Bahlula oo ah gabar aqoon-yahan ayaa markii ugu horeysay salaada Jimcaha tujisay dad iskugu jira dumar iyo rag oo ku sugnaa goob ku taala caasimadda Faransiiska ee Paris. Kaahina oo dhalashadeeda ay tahay Faransiiska aabaheedna uu ka soo jeedo dalka Algeria, waxay caan ku noqotay baraha bulshada markii ay bilowday olole gudaha Faransiiska looga dhisayo masaajid lagu magacaabo Fatima. Koox ay hogaaminaysa gabadhan ayaa waxay wadaan barnaamij lacag aruurin ah dhisitaanka masaajidka ay ku wada tukan karaan rag iyo dumar, waxaana sidoo kale masaajidka ku tukan karo dumar xijaaban iyo kuwa aan xijaabnayn. Kaahina Bahlula waxay warbaahinta Carabta u sheegtay waxay ila tahay in haweeney ay imaam ka noqon karto masaajid ay u oggolaanayso dhalinyarada muslimiinta in fikir wanaagsan ay ka qaataan diinta Islaamka. Daayarta maanta waxay masaajidada ku arkaan oo kaliya rag iyo odayaasha, marka diinta Islaamka waxay u arkaan mid dambaysa oo qadiimi ah oo aan la jaanqaadi karin casrigan. Waa sida hadalka ay u dhigtay. Kaahina ma aysan sugin dhamaystirka mashruuca ay ku dhisayso masaajidka, balse Jimcihii la soo dhaafay waxay qol ka kireysatay gudaha magaalada Paris, halkaas oo ay salaada kaga bixisay rag iyo dumar ku sugnaa goobtaasi. haddaad ku cusubtahay channelkan fadlan ha ka iloowin inaad noo saarto subscribe riix gambaleelka si aad u noqoto qofka u horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino.